asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaan iyo si kastood ii maqlaysaanba waa barnaamijkeenii gaarka ahay doorashada ka dhacaysa wadanka holland. doorashadan 4 sano mar bay dhacdaa. doorashada waxaa sababay dowladii dhexe ama dowladii wadanka inay ka shaqaysa la rabay ayaa dhacday bishii juun sanadkan 2025. waxyaalaha ugu waaweyn u dhacdo waxaa weeye azil blight wax la dhahay ama imakhraasiga dadka soo galootiga arrimahooda. waxaad u malaysay xisbiyada midigta fog markaad fiiriso jarmalka yurub oo dhanba way haystaa ciladahaasi sweden in xoog la saarayo dadka soo galootiga, laakiin waxyaalo kaloo badan oo asaasiya jiro laga hadlaynin. dhaqaalaha badan ee lagu bixinayo dagaalkan qasa ka socda lagama hadlaan, qof ka taaban karana ma lahan. waa arrin lama taabtaan ah, ma fahamtay? marka taasaa waxay keentay in dowladaho dhanba ay karaash noqdaan ama xisbiyada midigta fog ay dhinaca soo fuulaan. xisbiyada midigta fog markaa idin leeyahay waxay u janjeeraan dhinaca wadaniyadda, waxay leeyihin dhaqaalaha lagu bixinayo dadka ajnabiga wadanka soo galaya ha la yareeyo. laakiin caqabadaha haystaa waxay yihiin reer galbeedka horumaray sameeyeen, wax walbay sameeyeen, system ay samaysteen, laakiin manpower loo baahan yahay iyo waxaa la rabaa generation dhaxla meeshan. marka immigrationka waxyaalaha ku qasbaya waxay tahay iyaga awlaad badan ma dhalaan, marka si taranka loo badiyo fursadahaasi kaga faa'iideysanaya dadka kale, isdhexgalka iyo shuruucdan badan. si kastaba ha noqoto doorashada wadanka holland waxay ka dhici doontaa 12 gobol. holland wuxuu ka tirsan yahay 12 provinces la socotaba, haddii laga saaro korosaawo iyo kuwaasa 13 lagu magacaabo ay surnaamka 12kaas gobol. marka doorasho oo xulusula hareyna ka dhici doonta. marka walaalaha dhammaan soomaaliyeed ee fariinteedii soo gaari doonto waxaan jecelahay inay codeeyaan. ilmahaaga maktina u samayn kartaa haddii iskool aadayaan kulli, bal xoog hala saaro in la codeeya. maslaxadeena gaarka ayaa ku jirta insha allah. yaanu codeynaynaa marka waxaan u codeynaa labadan dhalinyarada ah ee soomaaliyeed. gabadhan waxaa lagu magacaabaa fatxiye cabdi, waxay ka tirsan tahay xisbiga khuruna links b v d a oo hal xisbi isku magacaaban. waa sida ay funsigeeda ku tilmaamayso, waa magaalada amsterdam, magaalo suusterland ay kasoo jeeda. sheekadeeda iyadoo qoraalan ka suubiyey meeshay ku dhalatay, waa gabar 30 jir ah. marka maqaalkaasaad akhrin doontaan oo idiin soo sheergarayn doona insha allah. boost loogu talagalay website waxaa jira loogu talagalay arrimaha holland looga hadlo, waxyaalaha soo kordha, sharciyada oo qoraal soomaali ah marka iyo english, laakiin soomaaliga adiga ku quseeyo. dadka aanan hollandeeska fahmayna loogu talagalay. dadka hollandeeska fahmaya dee hollandeeska iska akhrisanayo, dad kale englishku haddana englishkaasi raaci doono. waayahay intaasaan kusoo gaabiyo. gabadhaha loo codeeyay insha allah waa gabadheeni soomaaliyeed. marka dooro u codeeyay fatxiye cabdi 29 bisha. kursigeedana nambarkeeda waa 24 waay. markaad meesha doorashada warqada tagto kadibna waxaa sameynaysaa, waxaad leedahay waxaan u codeynayaa maaragtay warqada intaan kusoo bandhigi lahay mararka qaar waxay noqonaysaa in lagu qabsado. waxaa u codeynaysaa marka warqada waa noocan, warqad sidii kuu muuqata waa tan, halkaas kanaad ka buuxinaysaa halkaan, ma fahamti? halkaana waxaad sameynaysaa xisbiyada linkskooda ku yaala, ma fahamti? xisbiyada linkskooda ku yaala. marka qofka liisa inta kugu yaala liiskaasaa markaa akhrinaysaa quruna linkska bacd waxaa ka dooranaysaa 24 meeshaasaa rajiyeynaysaa, ma fahamti? waa saas waay doorashada lagu sheegaya, xasuusno insha allah. waaya marka gabadhaasa loo coday, gabadhaas dhalinyarada ay soo koraysa oo runtii actiif ah arrimaha velsinka iyo ka shaqeysa maaragtay volka sunhaydkeeda iyo waxaas ka shaqeysa ee magaalada amsterdam. marka arrimaha ku qasbayna iyadoo soomaaliya ka bogan doontaa. waa gabadh dhalinyaro soomaaliyeed oo soo koraysa oo coday insha allah. codkaada sii, reeraha la kala qaybiyo haddii allah awooda la yiraahdo. gabadhan waa codeyn doontaa xisbigaas. waxaa kaloo codeynaynaa insha allah walaalkeen maaragtay steven nur eker. nur eker waa nin dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolkan den haag ama soit holland lagu magacaaboba. marka meesha waxaa ku qoran ciwaan goonu leeyahay hawder nur eker iyo in waxyaaluhu ka qabta iyo codeyntiisa isagoo soomaaliya kusoo bandhigayna sharaxaada. laakiin stem 19 bisha isagana xisbiga denka waa xisbiga denka waa la kasaa lambarka 6aad uga codeyn doontaa.
sababaha ugu codaynayno asaa kuu sheegi doono nuur eker iga dhegeyso insha allah. magacay waa nuur eker, waxaa ka tirsanaya xisbiga dank soomaalida netherland degan. waxaan iga codsanaa inaa codaysiin, codkiinaa u baahanahay. haddii adiga rabtid ilmaha inay oo dugsi aadaan ama iskool islaami ah ama hilib xalaal inaa cuni kartiin, waxaa loo baahan yahay dadka dantiina muhiim ka dhigo oo baarlamaanka ka sheego inaa codsatiin. codkiina isiya xisbiga dank number 6. codkiina waa saa maqlaysaanba aad iyo aad baad u mahadsantiin. saad maqlaysaa wuxuu ku leeyahay nambarkiisina uu ku sheegay. marka walaalaha soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inaad ragaas dhalinyarada u codeyn doontaan, qofkiisa ku tiirsan yahay. warqad yarood qorto oo doorasho ku samayso wax badan kaa dhibi mayso oo wax dhaqaalo bixinaysa mo. marka taa waxay ku sahlaysaa in dhalinyaradaas ay meesha tagaan. xisbigan dankana arrimaha dibaddu aada u qaabilsan yahay, sababtoo ah ninkii cunsuriga wuxuu dhahaa waxaan xiraynaa masaajidda, xiraynaa iskoolada islaamka, xiraynaa xijaabkaan dhigaynaa. inkastoo indhashareerka bebeerka lagu sameeyey, indhashareerka haddii lagu guulaystana waxaa loo soo socdaa in xijaabka laga dhiga. marka wadamadii dariskana waa lasoo galay, faransiiska iyo belgiumka saa la socotaba. marka waa safmar waa nagu soo socdaa. marka walaalaha dhammaan waxaa leeyahay ha laga qayb qaato, dhalinyaradaas ha loo codeeyo. maslaxadeena gaarka ee waddankaanan degannahay ayaa ku xiran. ilaahay subxaanahu watacaala ummad kastaba maaragtay meeshay ku nool yihiin wixii masaalixdooda inay ka shaqeeyaana la rabaa, dadkii ka shaqeynayana ay taageeraan. marka walaalaha dhammaan waxaa idinkaga tegayaa amaano allah.